بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 259 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وضعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 24 bishii 9 Ramadaan sanadka 1441 isla markaana waafaqsan 17 bishii 5 sanadka 2020. waxaanu ku jiray mawduuceeni ku saabsanaa ramadaanka iyo aqsaamtiisa. qabla kulli shay intaana dersiga bilaabin waan cudur daaranayaa daahitaanka dersigeena maanta axada uu daahay. hadda waa duhurkii iyo casarkii dhexdooda iyo annaga noo tahay. maaragtay dadka qaarkoodna waxay u tahayba galab inay u tahay ama habeenna u tahay oo kale, qaarkoodna ay barqa u tahay baa suurtagala. marka insha allahu tacala waanu dadaalaynaa. intaa kadib ikhwatii fillahi waxaanu ku jiray mawduuceena qeybtiisii ramadaanka ku saabsanaa maaragtay zakaatulfidriga. waxaanu ka soo hadalay shalay xadiidkii cabdullahi bin cumar ee zakaatulfidriga ka hadlaya 5 axkaam watay ku saabsanaa zakaatulfidrigu inay waajib tahay. wujuub zakaatulfidri aanu ka qaadanaynay. qodobka kale labaadna tusinayay nooca la bixinayo iyo caynta iyo raashinka uu yahay. qodob kale saddexaadna qadarka la bixinayo, saac inuu yahay saac. qeybta kale saddexaadna ay tahay maaragtay dadka laga bixinayo ama uu ku waajibay. qeybta afraadna ay tahay maaragtay qabla salaad in la bixinayo iyo waxyaabihii ku saabsanaa. marka oo ah faradkii maaragtay waajibitaankeeda inay waajib tahay zakaatulfidri qofkii kara qaadirka cuntada maaragtay nooca la bixinayo iyo qadarkeeda iyo waqtiga zakaatulfidriga la bixinayo iyo dadka laga bixinayo ay ku waajibtay. intaasaan soo qaadanay xadiidka cabdullahi bin cumar. maanta waxaanu qaadanaynaa zakaatulfidriga xikmadda waa la waajibiyey, xikmadda ku jirta iyo macaanida ay xumbaarsan tahay iyo wixii ku saabsan. cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahy radi allahu tacala canhu wa ardaah, wuxuu leeyahay farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, rasuulku wuxuu farad yeelay zakaata alfidri, zakaatulfidrigu nabigu farad yeelay. limaada? xikmaddu maxay tahay? duhratan, daahiritaan iyo dhaqitaan iyo kabitaan lisiyaami, riwaayaadka kalena lisaa'imi, qofka sooman ay duhri u tahay oo tadhiirinayso, ay ka dahiri min allagwi warafath, laqwiga iyo rafadka iyo waxyaabaha maalayacniga ee soonkiisa iyo dhaawaca ka soo gaadhay bay ka dahiri ama ay kabaysaa oo xuma wixii ka soo gaadhay dhaawaca. iyo wa ducmatan quudin lilmasaakiini, masaakiinta ay u tahay ducmo iyo quudin ay u tahay. man addaaha ninka guta qabla salaati, salaada ka hor ninka bixiya, intaan salaada la tukanin ninka bixiya, fa hiya zakaatun, sadaqa wey, zaka weeye maqbuulatun la aqbalay. waman addaaha ninka bixiya bacda salaati, salaadii kadib inta la tukaday, salaadii ciid kadib ninka tukaday, markii la tukaday ninka bixiya, fa hiya sadaqatun, waa sadaqo oo min asadaqaati kamid oo zaka shaqa kuma leh. ikhwat alislaam walimaan, xadiidkan xadiid cadiima weeyaan, macaani aada u culus buu wataa. kow, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu cabdullahi bin cabaas noo sharxayaa zakaatulfidriga, wuxuu xoojinayaa xadiidkii aanu shalay soo qaadanay oo inay ahayd zakaatulfidriga ay waajib tahay qofka kari kara. wuxuu leeyahy cabdullahi bin cabaas, nabigu wuu farad yeelay zakaatulfidriga, wuu farad yeelay. taa waanu soo ogaanay oo dersigii shalay baanu ku soo barannay. xikmadaha ku jira iyo xikmadda shaygan dadka sameeya la yidhi iyo cibaadaadka iyo keyrkeedba, waxyaabaha cibaadaadka ku saabsan, waxana xikmadiisa in la arkaa suurtagala, waxna inay kaa qarsoonto. asbaabaha maaragtay xikmadaha ku jira zakaatulfidriga duhuray u tahay lisiyaam. hadda lisiyaami maaragtay abu daawuud lafdigiisa lisiyaami buu dhahayaa. riwaayaadka kalena lisaa'imi, ninka sooman waxay ka dahiri min allagwi warafath, lagwi iyo rafath bay ka dahiraysaa. lagwi waxaa la yihahdaa hadalka maalayacniga, lagwi baa la yihahdaa. waxaa kaloo laqwi la yihahdaa baatilkana laqwi baa la yihahdaa. baatil marka laqwigu
qaabab badan baa lagu idlaaqaa hadalka maalaa yacniga oo wax faa'iida adduuniya aakhira aan ku lahayn laqwi baa la yihahdaa. waxaa kaloo laqwi la yihahdaa baatilkana laqwi baa la yihahdaa. idan waxyaabaha laqwiga ahee qofkii soomana uu ku dhacay ayay ka dahiri oo ka dhaqi. iyo rafadka macaani badan buu leeyahay. macaanidiisa waxaa ka mid ah fuxshiga, hadalka xun baa ka mid a. hadallada xunxunka iyo ficilka xun iyo wixii ku saabsan baa rafadna la yihahdaa. dhinaca kalena jimaac waa la yihahda, lakin maanta jimaac looma jeede, waxaa loo jeeda hadalka xun iyo ficilka xumaa. macnaheedu hadalkii xumaa ee laqwiga ahaa ee baatilka ahaa ama maalayacniga ahaa iyo hadalka fuxshiga xumaa ee ninka sooman ka dhacay bay dahiraysaa. ka dahiri wixii kasoo gaari lahaa bay ka dahiraysaa. dhinaca kale haddaan cabiro jabri baa la dhihi kara, way kabi. ilan hadalkaa xun eed ku hadashay iyo ficilkaa xun eed samaysay soonkaada ajirkiisi buu naqsi ku keenaya. naqsigaasu kabi marka zakaatulfidriga ay kabaysaa. taa waa xikmadda koobaad wey. xikmadda labaadna ducmatan lilmasaakiin, masaakiinta quudinna wuu u yahay. labadaa xikmaa xadiidka lagu sheegay. idan zakaatulfidriga labadaa macnay xumaarsan tahay: tuhratan lisaa'imi min allaqwi warafathi wa ducmatan lilmasaakiin. masaakiintana quudin iyo gaajo ka bixitaan bay u tahay. markaa nabigu wuxuu sheegay ninkii guta salaada ka hor oo bixiya waa zake maqbuulaa wey. bacda salaad ciidda markii la tukaday kadib qofka bixiyana sadaqa min asadaqaada wey. aan isku soo ururino xadiidka awal wuxuu noo caddaynaya axkaamtiisa zakaatulfidriga inay waajib tahay qofka kari kara, sida cabdullahi bin cumar xadiidkii shalaan kusoo qaadanay. lambar labo, waxaa kaloo xadiidku noo sheegayaa xikmadda zakaatulfidriga ku jirta inay laba nooc tahay. kow, laqwi iyo rafadka iyo dhaawaca qofka soonka ku dhacay, qofka sooman waxyaabaha laqwiga iyo xumaatada uu ku dhacay ayay ka kabaysaa ama ay ka dahiraysaa. qodobka kale saddexaad, masaakiintana waxay u tahay quuditaan iyo cuntay u tahay. qodobka afraad, waktiga la bixinaya zakada qabla salaad waa zake maqbuulaa wey. qodobka kale afraad ee shanaad baan rabaa, zakada bacda salaad haddii la bixiyo waa sadaqa oo min sadaqaada wey. idan ikhwatii fillah, xadiidka wuxuu noo caddaynayaa oo muhiimada aan maanta u qaadanayna ay tahay zakaatulfidriga xikmadda loo jideeyey inay tahay qofka saa'imka oy laqwiga iyo rafadkii wuxuu maarata ku dhacay iyo xumaatadii iyo ficilka xun iyo hadalkii xun ay ka dahirayso o ka dhaqayso, masaakiintana quudin ay u noqonayso. iyo salaada waktigeeda ka hor in la bixiyo waktigeeda waktiga salaada ka hor iyo maaragtay bacda salaad haddii la bixiyan inay sadaqa tahay. waxaan dul istaagaynaa wixii laga bixiyey, wixii qaabka maaragtay qadarka la bixinayo shalay baanu ka hadalay, wax yar baan ku celinaynaa. shalay waxaan soo raaciyey dersiga bahalshooda sawirkeed baan soo raaciyey oo dadka qaar kamida ayna fahmin oy dhaheen maxaad ooga jeedaa arrinka. bahasha waxaan ooga jeedaa mudka waxa la yihahdo. waxay diintu noo sheegtay axaadiitu saacuna oo af soomaaliga suus lagu yidhaahdo. saacuna culamadu waxay dhaheen 4 mud weeye. hadda mud af carabiga af soomaaliya maxaa lagu yidhaahdaa? wallahi waan raadiyey midaas. runtii xaqiiqatan dadku way ku kala duwan yihin. xagga koonfurta shood baa la yihahdaa, meelaha kalena waa qaarkood waxay u yaqaanaan maarata madaal bay u yaqaanaan. madaalla waa la yihahdaa, shoodna waa la dhahaa. adu waa nooca. marka shooda aan shalay sawirkeeda keenay mudkii markii la qiyaasay oo la beegay ayadaasu la nooc noqday wey. idan meelaha waxyaabaha lagu beego kiilo ahaan haddii la yihahdana waa 2 kiilo ugu badnaan qofku 2 kiilo bar inuu bixiyo wey. 3 kiilo waa ziyaado wey. marka 2 kiilo iyo 40 maaragtay gram, 2 kiilo iyo maaragtay 250 gram, 2 kiilo iyo bar baa ugu fiican. 2 kiilo iyo bar. midda kale miisaanku way waxyaabaha miisaanka la saaro way kala duwan yihiin. bariiska miisaankiisu lamid maaho timirta miisaankeedu lamid maaho galleyda, way kala duwan yihiin. marka nooc kasta miisaanka intuu ka qaato baa la fiirinaya. marka 2 kiilo iyo bar baa ugu fiican waxa la bixinaya. 2 kiilo bar noqdo quutul qaalibka cuntada markaas beledka cuntada qaalibka u ana weeyaan. haddii galley tahay iyo haddii masagada yar yar ka tahay iyo hadday bur tahay iyo hadday tahay maaragtay bariis uu yahayba, kolba wixii cuntada halkaas quutul qaalibkaasaa la bixinaya. waxaa kaloo dadku aad isu weydiinayaan, lacag ma la bixin karaa? masalada in zakadii bedelkeeda lacag la bixiya waa masale culimmadu ay isku khilaafeen, laakiin jamhuur ahlulcilmi, culimmada aqlabkoodu jamhuurtoodu oo madhabka shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo ahlulxadiid
waxay leeyihiin raashin baa la bixinaya, raashin baa la bixin bay dheh, waana sida raajixa weeyaan, raashin baa la bixinaya. madhabka xanafiga markaa waxay dhaheen iyagu lacagna waa la bixin karaa, oo kolba faqiirka waxa maslaxa ugu jirto ayaa la fiirinaya, marka lacag waa la bixin karaa bay dhaheen. madhab saddexaad oo ibnu taymiya qowl ay qabaan baa jiro oo dhahaya waxaa la fiirinayaa hadday maaragtay daruuro iyo baahi keento ayaa lacag la bixinaya. meesha lagu kala duwan yahayna waxaa weeyaan lagu kala tegsan yahay ma nusuusta waxa ay sheegtay oo xadiidka daahirkiisa iyo cuntada la sheegay miyaan ku ekanaayo midaas, mase ma ahe waxaanu fiirinaa macnahaanu fiirinaayo raashinka waxa loo bixinayo waa masaakiintan gaaja bixeskooda iyo maslaxadooda. min baabil maslaxa haddaanu fiirino raashin keliya kuma ekaanaysa, oo qolada dhahaysa lacag hala bixiyo maslaxaday leeyihiin faqiirkan inay wax loo tara weeye. wax tarkiisana marka raashin keliya kuma ekee, wuxuu noqon karaa raashin lacag buu noqon karaa, dhar buu noqon karaa, wax kastuu noqon karaa bay dheheen. almuhim aduu halkaasaa la isku haystaa, marka sida raajixa raashinkaasaa la bixinaya. waxaa su-aal ka imanaysa dadka wisrankii reer galbeedka jooga raashin waxaa laga yaabaa dad ay siiyaan inuusan jirin. taasoo kale waxaa weeyaan waxay soo gelaysaa masalada la yihahdo zakada intee la qaado waddan kale ma la geyn karaa? nacam, waa la geyn karaa. meesha aad joogtay masaakiinta inaad siisi baa fiican, laakiin meel kalena waa loo diri karaa. lacagtay dirahayaan ramadaanka marka wax yar ka dhiman tahay ayay lacagta dirahayaan. soomaaliya iyo meelaha dadka fuqarada joogaan bay u dirahayaan, shaksi bay wakaalanhayaan, lacagtii bay asaga u dirahayaan. lacagta raashin ku gado wakiil naga noqo oo bixi, markaa masaakiinta saa kusii bay leeyihin. marka ingiriiska hadday joogaan gini bay bixinayaan, yuura la bixinaya dadka reer yuruba, maraykan dollar, wahaakada wixii maaragtay kale shilin riyaal. idan waad dirsanaysaa, dhowr maalmood markay dhiman tahay baad qofkii yaad u diri wakiilkaa ah ood aaminsan tahay, raashin buu ku gadahayaa. sidaasu markaa deedna ayuu adoo wakiilkaa ah ayuu markaa dadkii siinaya. idan jamhuur ahlicilmi inay raashin la bixinayo ayay qabaan, sidaasaanu maaragtay ku ekaysanana. haddaad aragtaan culimo kale oo fadwoonhaya oo lacag ama wax kale hala bixiya leh, la qariibsan maayo. waa madhab maaragtay muslimiinta ay qabaan, oo sida madhabka xanafiga oo culimo ajila ay qabaan iyo wixii lamidkaa weeyaan. marka laakiin sida raajixa muslimiinta iyo culimadu u badan yihiin salafan wa khalafan waxa weeyaan raashinkaas ayaa la bixinaya. sida hadda madhabka shaafici oo kale imaam nawowi wuxuu leh waa itifaaq weeyaan buu kule madhabka shaaficiga. nusuus imaam shaafici dhammaanteed waxay isku waafaqsan tahay buuri. imaam shaafici wixii nusuus ka sugnaatay oo dhan inaana lacag la bixin karin ayuu imaam nawowi kitaabkiisa majmuuca ayuu ku leehay. idan xadiidkeena maanta inahaas aan kusoo koobaynaa inuu maaragtay zakaatulfidriga xikmadda ku jirtay quudiskaas masaakiinta la quudinayo iyo ay tahay soonka qofka dhaawaca ka soo gaadhay oo ay ka dahirayso. ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusa nuuna irsaaqo xaqa raacitaankiisa. hal mar baan xadiidka akhriskiisa ku celinayaa. alxadiidu 259 can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakata alfidri طuhratan lisiyaami min allagwi wاlrafathi waducmatan lilmasaakiini man addaaha qabla asalaati fahiya zakaatu maqbula waman addaaha bacda asalaati fahiya sadaqatu min asadaqaat rawaahu abu daawuud walxadiidu saxiix. intaana xadiidka xidhin waxaan ku khatimayaa oon iloobay masale yar. qofkii hadduusan bixininba zakaatulfidrigii maba u bixininba, waa la tukaday salaadii, zakaatulfidrigiina lama bixinin, muxuu samaynhayaa? wuu bixinayaa ay waktiga u sahlanaato uu kari karo u bixinayaa, leanna waa qado weye sida raajixo lagu leeyahay. idan dimadiisaa lagu leeyahay kamayna dhicin. idan asaga iyo dadku mas-uulka ka ahaa markaas u bixinayaa, qadlo lagu leeyahay wey. ilaah hadday dhowr sano hataa uusan bixinin intiiba wuu guda, waa sida zakadoo kale waa gudhayaa. waxaa kaloo su-aal imanaysa, xanuun baa dhacay, coronavirus baa dhacay oo guryaha lagu tukadaa, jamaacadii iyo jumcadii iyo taraawiixdii waa la ilqeeyey. ciiddii hadday timaado maxaa la samayni? sida raajixa guryaha lagu tukanaya. nin kastoo guriga aad joogti, reerkaadii iyo carruurtaadii ayaad istagu leedahay, 2 ragcadood baad tukanaysaan sida raajixa. wax khudba ay leedahayna male. anas bin malik radi allahu tacala canhu ardaah ayaa waxaa ka sugnaaday inay ciid intay ka tagtay salaadii ciiddii jamaacadii ay ka tagtay, inuu carruurtii reerkiisa intuu jamciyey uu salaad 2 ragcadood uu tujiyey oon wax khudbaa lahayn. marka guryaha lagu tukanayaa. hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.